frozen أنا قتان frozen أنا طالع يا سلام waxaan mariyay ilhaan xabiibti waxaan mariyay hablaha dhalinyaro hadda waxaan ku daawanaya hablihii macawlaalaha iga yaryara oo role model ah u tahay hablaha yaryar maxaa odhan lahayd ee raba footstepkaaga inay raacaan horta waxaan ku dhihi lahay is-aamina qofka markii uu rabo meel in uu gaaro ama uu hami leeyahay waxaa koo muhiim ah in uu asiga is-aamino in hamigaasaytii uu fulin karo and then kabacdi waxaa muhiim ah in dadka oo aad la kulmi doontid ay isku jir noqon doonaan dad ku dhahayo waxaanay timo ku suurtagalaayo iyo dad ku dhahayo hore u soco inaad kala baratid qofkii oo daacad ay ka tahay iyo qofkii aynan ka ahayn aad suubsatid saaxiibo iyo circle oo fiican oo adiga ku fududaynayo sidii aad ku noqotid qof oo dhiirigelin leh oo meeshii uu gaari karo you know politics waa sport ay dhahaan it's survival of the fittest anybody or sports ciyaaro wuu fahmi karaa and truly it's about practice right and crafting yourself into being the best that you can be and then mana politics can I think dumarka way u adag tahay because dadka badan ama aaminsana inaanaka leaders aan noqon karno inaan wax maamuli karno in guriga maahine meel kaleete aan kasoo bixi karno badanaa waxaad arkaysaa ragga markii ay dhahaan siyaasi aan noqonaya qof oo weydiinaya male maxaa taqaanaa maxaa og tahay maxaa fahmi kartaa and gabar laakiin you know everybody wuxuu rabaa in uu boqol wax weydiiyo steps uu marsiiyo and then nimanka also expectationadii kaleet way ka kala yaraanayaan waxaa lagu leeyahay walaalka hamiyuu leeyahay waxaan u fududeey kan u suubi kaas u suubi gabadha waxaa laga rabaa iyada wixii oo dhan inay suubiso and then hamigeedina iyada inay gaarto waxbarashada taas waaye wax kasta gabar ay raadsanayso wixii shaqooyinkii dumar ahaan loogu talagalay iyo wixii kaleeta ay rabtay waaye ragga jidadka looga dhaqaajinayaa wax kastoo obstacle ah waa laga leexinayaa so you know I think badanaa dumar haddaan nahay laba choice aan haysanaa soo maaha inaan hamigeena aan raacno oo wixii aan rabno aan noqono ama in aan normal caadi iska dhigno oo ilmo aan korsano gurigeena aan joogno qof xaaskiisa aan noqono marka traditionally way nagu adag tahay maskax ahaan in haweeney oo ilmo haysato guri maamulanayso guriga banaankiisana hami ay ka yeelato hamigeedana uu yahay hadde hami weyn oo rabto wax weyn inay taariikh meel fiican ay ka gasho marka challenge wuu weyn yahay inaadan waxaas dhag u dhigin oo aad iska fahantid like that's just tradition and you just bulldoze you go for it and you know for me life it's been that way I had children very very young gabadhayda ugu weyn hadda waa almost an adult and I also have a little baby to the jir and you know like life just continues you know you just figure out and hore u soco dadka say dhahaan oo kale you just continue and like dadka waxa ay ku dhahayaan qofkii ku dhahayo shaqadan aday ma lagugu talagelin booskaas ma gaari kartid jagadaas ma heli kartid waxaas dhan dadka u dhigin because I mean dad anoo kaleetaa jiro oo I shouldn't be meeshaan maanta aan joogo but I'm here because I believed in myself and everyone else did. That's beautiful wallahi. That's laba wax baan ka qaatay Ilahaan waxaan ka qaatay believe in yourself you have a good circle good real friends يعني dad kalsooni aad ku qabtid. That's beautiful advice. I mean it's timely right I think dadka badana like waxa qofka oo dadka circle-kaaga ku jiro you think haddii aad iyaga ka tagtid wax ma ku suurtagalaayo
And sometimes you have to let things go in order to create more space for others to come in who are going to help you be the best person that you can be. That's beautiful, والله. تكلم عن إلهاني ولا لا ربنا كويدينا. What inspires you? يعني what motivates you? هذا the شنطة الصومالو دم proud of you. يعني هذا عاو حقا مسؤولين تبى كتير وسيرو حلبانين ضدك مقع يشرف كلها. دنك بحدي فنك سبورتس كا صومالو دم متشابهاتها. Difficult hard times نوا وهايستا here and there. محات motivates you. هذا محاك motivate جريا. It inspires you every day to go to the work. I know. أدي إن هذه رونيدا أملينا Somali English challenge أنا ولا هاي السلامة ده أنا. I'm not in your level yet. Level كذي ما عندي. Somali استعمال شنو عن كحظة أدي كده. يا إلهي. I think like motivation مال كستو ويالا right هدي أدرات سنيسيد وحكستو كون قنكرا in motivation. I think mostly وحن motivated عن كأهاي like عيالكيغا. I know يرانتي دي وحيالا بدن possible مينا إيهان because environment تيجا different ahead. And I motivated عيالكي every single thing possible so I want to create a different environment than the one aniga an kuso koray culturally, politically, religiously, and family wise. I think opportunities are limited when you don't have a good external environment to exist in. Exactly. And oftentimes we don't think about that external environment. We forget that there are so many challenges, there are so many obstacles that can be removed if there was a societal growth. Okay, wow. And so I think عيال كيغا وحن politics وجرا for them and other عيال يغو كلاتا لمد and so I can create social, economic, and environmental equality so they can exist in a better environment than me. I think badana dhibaatooyinka badan aan la kulmo really is out of that motivation because ma aaminsani like waqti badan inaan haysano, right? I waxaan aaminsanahay waqtigeena aad u yar yahay to be impactful. And so dadka badana waxay aaminsan yihiin like 10 sano iska sug 20 sano iska sug and then eventually you'll get somewhere. And I think like ciyaalkayga time ma haystaan ciyaalka kale adduunyada ku nool time ma haystaan, so we do what we can today as much as we can so there's a better environment for the generation, yeah. وانا هنا على وقت حين صدقني سؤالات back to back. Favorite food? Favorite food بريسي هرباري. Yes. Very Somali that way. Most like I'm not a fan of moss. Here we go. A Somali household without banana. Ma Somali. Yeah. Actually, like Somali DNA was very interesting because wax kasta waxay rabaan Somali inay moss inay ku cunaan. I don't know like Kenan because I need moss to uni. That's beautiful. So very strong Somali DNA. That's very wallah. Hey, McDonald's, I'm a Burger King. McDonald's. Fries score is excellent. Mercedes, I'm a BMW. None. I don't like flashy things. Gaariyaasha turbalka waa ka soo horjeeda obviously. Very simple girl. ده waanu galay taasda. Iyaba rabay walaalo su'aashan cid kasto aan ku soo xidhaa maxaad uga tagaysaa fariin kuna maanka kuna hadda ku daawanaya iyo kuwa gadaalba ka daawan doona oo fursad bay hadda haystaan inay ku wararkaan dhamaantoodba. I mean, laba fariin aan uga tagi lahay mid ku saabsan pandemic-aneyd hadda aan ku jirno. Dad waxaa jiro oo nasiib leh adiga meesha joogtid oo kaleeto joogo oo
dhaqdhaqaaqooda uusan ka xayirmin oo noloshoodii sidii caadiga u wadan lahaayeen wadamo dad aqli ay leeyihiin ay rangareynayaan ama madaxweyne ay u yihiin ku nool and then dad anagoo kaleete oo you know madaxweyne aan science iyo waxba aanan aaminsanayn uu madaxweyne u yahay and I want dadka labada dhinacba ay ku nool yihiin in mid ay xasuustaan in anaga oo dhan hal adduunya aan ku wada nool nahay right and kulligeen connected aan nahay so adiga whatever maanta aad haysatid qof walaalka ayaanan haysanin and qof walaalka maanta wuxuu haysto inaan adiga haysanina laga yaabaa and that's okay and the best thing we can do is wish the best for everyone else in aan ku fikirno like globally maxaan dadka ku taakuleen karnaa maxaan qaban karnaa and sen qof kaleete booskiisa isku dhigi karnaa oo aan uga fikiri karnaa dhibaatada haysato ama wixii you know situationka uu ku nool yahay and I think that makes us a better global citizen if we're worried about others we become better global citizens and then I think secondly because waxaa tiri dhalinyaro yaryar oo badan aan na fiirsanayaan and I think this is just message ahaan Soomaalida waxaan badanaa ilownaa Soomaali haddii aan nahay in kulligeena aan hal family nahay and qof kasta oo Soomaali wixii dheefkana waa isla share garaynaa dhibaatadana waa